بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal soo dhowaada waxaad nagala socotaan waa Gurkati TV oon alaaba idinkaga soo gudbin jirnay barnaamijyo kala duwan. Haddana waxaan idinka soo gudbin doonaa insha Allahu tacaala barnaamij la xiriira cunsuriyadda iyo dhibaatooyinka iyo saamaynta ay ku leedahay bini'aadanka iyo sidoo kale xiriirka ka dhexeeya cunsuriyadda iyo qabaliyadda. ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa, wuxuuna noqon doonaa barnaamij silsilad ah oo aan asbuuc kasta maalinta sabdiga soo dayna haddii ilaahay idmo, kana hadlayno qisooyin dhacay oo dhab ah oo la xiriira cunsuriyadda ayaan soo dayn doonaa haddii ilaahay idmo. marka waxaa ficnaan lahayd inaad follow garaysaan pagekan ama aad subscribe dhahdaan youtube-ka Gurkati TV si aad barnaamijkan ula socotaan asbuuc kasta haddii ilaahay idmo, oo aan maalin kastoo sabdiya soo dayn doono barnaamijyada noocaana. qisooyinkan aan maanta idiin soo gudbin doono waxay ka kala dhaceen magaalada Muqdisho, magaalada Hargeysa, Boosaaso iyo Goday. waxaan ku dari doonaa iyadana mid ka dhacday dalka Holland. marka qisooyinkaas cunsuriyadda, marka waxaan fiirinaynaa haddii ilaahay idmo waxa ka dhexeeya, xiriirka ka dhexeeya cunsuriyadda iyo qabaliyadda. runtii waxaa ka dhexeeya waa mid cunsuriyadda waxaa keena qabaliyadda. waa 3 derajo. derajada koowaad waxa weeye qofku wuxuu joogayaa derajadii ahayd waxaan idinka dhignay shucuub iyo qabaa'il si aad isugu garataan. derajadaas wuu joogaya, waa midda koowaad, derajada koowaad oo qofku inuu dadka ku xiriiriyo qabiilkaas uu yahay, qaraabadiisa iyo eheladiisa iyo siladiisa iyo inuu ku xiriiriyo waa mid. waxna uu ku taro wixii uu ku kari karo, waa middaas. midda labaad, derajada labaad waa derajada cunfiga ah oo waa qabiliyaddii kor u soo kacday oo ah qofku inuu dad ku dilo, dad inuu ku waxyeeleeyo, dad inuu ugu hiiliyo dulmi. waxay noqonaysaa iyaduna derajada labaad oo qofka uu uga dalaco qabiliyaddii oo dalacaysa waay. qofkii marka koowaad wuxuu joogaa sidii ilaahay ugu talagalay oo ahayd in laysku garto. marka labaadna wuxuu u gudbayaa mid ka sarraysa taas oo ah cunfi iyo inuu qof uu dad ugu gargaaro iyo qabiil ugu hiliyo iyo in lagu dagaalamo ayuu u gudbayaa. midda saddexaad, derajada saddexaad waxay noqonaysaa derajada cunsuri inuu noqdo qofku. uu ka gudbo labadan derajo, markuu ka gudbo qofku wuxuu noqonayaa cunsuri buu noqonaya, qof cunsuri buu noqonaya. marka taasi waxayna marka waa xiriirka ka dhexeeya qabaliyadda iyo cunsuriyadda. marka sidaan idiin sheegay, qisooyinkan aan hadda idiin soo gudbin doono ka kala dhacay Muqdisho, Boosaaso, Hargeysa iyo Goday, iyo mid kaloon ku dari doono ka dhacday dalka Goday, iyo kuwo kaloo badan aan hayno oon asbuuc dambeba soo dayn doono. marka haddaad doonaysaan haddaad haysaan qisooyin noocaan oo kalena waa noo soo gudbi kartaan. waxaadna kala socon kartaan janalkan iyo sideedaba janalka youtube-ka ee Gurkati TV oo mar walba lifaaq la socda uu jiro oo linki ah oo aad halkaas subscribe ka dhigi karto, ama waxaad follow garayn kartaa pagekan si aad noola socoto mar walba barnaamijyada aan sii daynayn. qisada ugu horeysa waxay ka dhacday magaalada Muqdisho. anigu goobjoog kama aanan ahayn, waa qiso la iiga sheekeeyey. waxay ahayd reer ka soo doontay reer kale gabar. laysu gogol fariistay. soomaalida caadi waxa ah markii gabdha la kala doono in maaragtay laysweydiiyo, qof qolo walbaba qolada kale ay weydiiso ama laysku barto. marka ninkii gabadha laga soo doonay ayaa wiilkii wuxuu ku yiri, reerkii ku yiri, ama wiilkii ku yiri, haddaad ahaan lahaydeen ama haddaad ahaan lahayd nin nasab ah sidaydoo kale oo aadan ahaan lahayd nin nasab dhimana sidaadoo kale, gabar ma siin lahayd nin sidaadoo kale ah. markaasuu wuxuu ku yiri, haddaan muslim ahaan lahaa sidaydoo kale
oo aanan mujrim ahaan lahayn sidaadoo kale waan siin lahaa waxaa dhacday marka halkaas waxaan rabaa wax yar inaan ka iraado waa maxay horta marka koowaad nasab waa maxay nasabku waa abtirsi dhalasho maaha qabiil maaha macnaha nasabku waa abtirsi hebel 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 waa marka wax lagu kala fiicnaado ama wax lagu kala wanaagsanaado ama lagu kala liito midna maaha halkaa waxaa ku burburay gogashii guurka loo fadhiyey oo lagu kala tegey maxaa dhacay marka waxaa dhacday ninkii isaga ahaa markuu ogaaday inay jeceshahay gabadhiisu wiilkaa oo aanay daynayn wuxuu go'aansaday inuu gabadhii dhoofiyo wuu dhoofiyey wuxuu geeyey dalka maraykanka qisadan nimaan saaxiibnaha igaga sheekeeyey gabadhii marka muddo markay joogto waxay baratay nin yuhuudiya amerikaana waxay la soo xiriirtay odagii u diiday wiilka muslimka ee walaalkeeda waxayna ku tiri aabe waxaan guursanayaa ninkaas maraykanka ah iyagoo xeeb ku dabaalanaya iyagoo xeeb jooga iyagiyo labadoodii gabadhii bikiinigii iyo wixii yaraa halkaa ku xirnaa ay wadato ninkii yuhuudiga ee koofidii yare halkaa u taagan tahay sawiradii u soo dirtay haddi waa saas gabadhii marka odagii wuxuu eegayaa islaamnimadii gabadhii inay yuhuud u gashay waxaasoo dhan macno uguma fadhiyaan waxaa macno ugu fadhiya gabadhii inay lacaga soo dirto oo maaragtay oo sawirkeeda ijaabka ku wato yidhahdaa yaa oo ku faanaba uu yidhahda gabadhayda nin maraykan ah qaba maanaha adiga kula siman iyo wax lamida marka qofku tilaabada uu qaadaya haddaanu ka fiirsan waxaa ka dhalanaya wax geynaya cadaab adduunkiisana baabi'inaya aakhiradiisana baabi'inaya ninkaasi hadda asaa sabab u ah inay gabadhiisu yuhuud u gasho niman islaam ahayn ay guursato inay nolosheeda iyo mustaqbalkeeda wixii dhan ay baaba'aan aakhiradeeda iyo adduunkeedaba isagaa sabab u ah marka waxaa muhiim ah inuu qofku iska ilaaliyo tilaabada uu qaadayo waxa ka dhalanaya inuu ogaado uu ka fekero aaday muhiim u tahay waxaan rabaa marka sheeko yar inaan dhex geliyo inta aanan qisooyinka kale u gudbin waxyadaa cajiibka aan la arkay waxaa ka mid ah wiilkii soomaaliga ahaa ee guursaday gabadha suuluuga ama south afrikaanka ee muslimadda ahayd ma aan ku ceebaynayo suulu waa qabiilkay u dhalatay south afrikaanna waa dalkeeda wayna soo muslimtay waxaan fiiriya marka commentiga laga samaynayo waxaan arkay laba nin oo yidhi way fiican tahay gabadha inuu guursado laakiin waxa ka sii fiicnaan lahayd gabar soomaaliya inuu guursado laakiin ma aanan arag qof u eedaynaya oo u cambaaraynaya cirdigeeda ama qabiilkay ka soo jeedo ama xataa in jaanibkeeda dhan ay gaala yihiin marka iyada laga reebo oo ay ilmaheeda saamayn ku yeelanayaan qofku cambaaraynaya ma aanan arkin waxaan rabaa marka su'aal inaan idin weydiiyo ninkaasu hadduu meesha gabadhaas uu ka guursaday uu ka guursan lahaa gabar beesha jareer weyne ah sida loo soo dhoweeyey ma loo soo dhoweyn lahaa sida loo ixtiraamay ma loo ixtiraami lahaa su'aasha labaadoo la raba in la weydiiyo islaamka cusub ma wuxuu ka fiican yahay islaamkii hore dadkii muslimiinta abka ab ah miyuu ka fiican yahay qofku hadduu soo islaamo waxaan arkay qofka soomaaliga haddii qofku soo islaamo maanta wuxuu diyaar u yahay nuucuu raba ha ahaado madow iyo caddaan iyo jaynis nuucuu raba ha ahaado wuxuu diyaar u yahay inuu gabadha la dhalatay ama gabadha uu dhalay inuu u guuriyo ayuu diyaar u yahay sababtu maxay tahay marka ma xamaasada ma laablakaca maxay tahay sababtoo ah waxaad u diidan tahay wiilkii la dhashay iyo kii isla soomaalida ahayn isla islaamka ahayn isku dhaqanka ahayn wax walba wadaageen ayaad u diidan tahay qabiiliyad ugu diidan tahay marka nimaadaba qabiilkiisaba aadan aqoon oo ama ka yimid minimaar ha ka yimaado ama ha ka yimaado trinidad tobaabka ha ka yimaado ama jamayka ha ka yimaado ama jayna ha ka yimaado diyaaraad u tahay markuu soo islaamo hadda inaad gabadha u guuriso walaasha inaad siidid gabadhaada inaad siidid diyaaraad u tahay laakiin wiilka soomaaliga ahaa ee kula dariska ahaa ee aad eelka iyo qaraabada wax walba ahaydeen uma ogolid marka islaamnimada noocaas maxay tahay oo qofka cusubna soo dhaweysa islaamkii horena diida kan xaqa kugu lahana diida midaan xaq kula lahayn kuu soo dhaweyda waxaa macnaheedu yahay
mid aanan fahmi karin marka taa markaan intaa uga gudbo qisada labaad waxay ahayd qiso ka dhacday magaalada goday qisadaas gabadhii ay ku dhacdaa buug ka qortay buuggaasan arkay 92 maraan joogay Addis Ababa ayaa waxaan arkay buuggaas ay gabadhu kaga sheekaynayso gabadhu waxay tiri anu gabar Soomaaliya ahay gabar muslimada ahay gobolkaanaan ku dhashay halkaanaan ku soo qaan gaaray waxay tiri markii la koray gabdhihii waa la kala guursaday anigaa meesha ku soo haray waxay tiri marka gabdhaha la kala guursaday asxaabtoodii oo dhan gabar xataa qurux iyo heybad aniga igu dhan male laakiin waxaa dhacday in gabdhii la guursaday ana soo haray anigu waan weynaaday markaan weynaaday waxay tiri waxaan guursaday nin xabasha macnaha xabashi ah ama amxaar qof walba si u yaqaan gabadhi marka hanti ay leedahay ayadaa buuggaan qortay ma aha wax ku tiri kuteen ah marka hanti ay leedahay baqaar weynaa uga furan magaalada goday marka waa meesha bartilmaameedka meesha centerka lagu ballamo oo lagu sheekaysto weeye ama la isku ballamiyo weeye baqaarkeed marka waxay sheegtay aad iyo aadan uga xumahay inaan eragaan iraahdo laakiin ma bedeli karo wixii gabadhu ay buugga ku qortay ma isticmaalo laakiin ma bedeli karo gabadhu buugga waxay ku qortay waa inaan sheegaa wixii ay buugga ku qortay marka waxay tiri kii wax ii dhiibanayaa kii wax qof u dhigayaa anuu ii dhigaa baqaarkaygu u dhigaa kii alaab keenayaa wuxuu keenaa baqaarkayga kii qof ballansanaya wuxuu ku ballansadaa baqaarkayga kii qof wax u dhigaya marka waxay tiri waxay leeyihiin bay tiri oo dhaqan u ah kii qof la ballamaya wuxuu leeyahay war baqaarka midgaanta iigu imaa I'm sorry macnaha gabadha say buugga u qortay waa inaan u sheega waxba kama bedeli karaanay wuxuu leeyahay tiri kii wax ii ballamay war hadda xagaan kugu imaadaa baqaarka midgaanta iigu imaa alaabta xagaan kugu dhigaa baqaarka midgaanta ii dhig xageen wax kugu dejiyaa baqaarka midgaanta iigu deji waxay tiri noocaas aniga waa la ii imaanaa hebel qofkan wax iisii alaabtan iisii marka kii kale wuxuu leeyahay markuu iga tago war baqaarka midgaantan alaabtii kuu dhigay ka qaado war midgaantan kuugu dhiibay kala wareeg waa siday iyadu u qortay waay hadal waxna kama bedeli karo waxna kuma dari karo wax la iiga sheekeeyey ma waxaan anagu akhri maxaa dhacday marka gabadhii iyadoo og in cunsuriyadaas ay ku jirto weli ninkii alaab dhiga way u qaban kii alaab loogu dhiibo way siin kii wax walba oo la sameeyo bini aadanimo way u samaynaysaa dadkii sidaa u dhibaataynayay way u samaynaysaa oo kii alaabtan iyo xareeyay way u xaraynaysaa oo kii alaabtan hebel iisii yiri wayna ogtahay hebel in la dhihi doono midgaanta alaabti ka doono iyo midgaantan alaabti kuu dhigay in la dhihi doono way ogtahay laakiin ayada shaqadeed maaha way qabataa hawshii way u gudbisaa wax alla waxa sidii loogu talagalay ayay u samaysaa hawshii u fulisaa laakiin abaalkeedu muxuu yahay midgaanta iigu imaaw midgaanta iigu dhiib midgaanta ka qaado midgaanta iigu deji dhaq alaabte waa noocaas wey iyadoo og ayay marka dadkii baqaarkeeda wax ugu kaydaysaa maxaa dhacay marka intaas ma lagu dhaafay gabadha buugga marka inay waxaa noo dhiman qisada gabadha buuggan inay qorto wixii ku kalifay marka way arrintaa bannaanka soo dhigto waxaan rabnaa marka qisooyinka noocaana waa sii doyn doonaa sabti kasta ayaan sii doyn doonaa haddii ilaahay idmo qofkii raba inuu la socdo pagekan inuu follow dhaho ama uu like saaro follow dhaho pagekan si markasta barnaamijka uu soo dhaco ama Gorgata TV lifaaqan la socda oo subscribe dhaho YouTube-ka si uu u helo mar walba wixii dhaafay maxaa ku kalifay gabadhan marka inay qorto buuggan waa arrintii ugu yaabka badnayd gabadhii markaanay waxba dhahaynin oo aanay waxba u geysanaynin oo ay wax walba u samaynayso waxaa la go'aansaday sababta ku kaliftay in ninkeedii lagu diro ninkii amxaarka ahaa in lagu diro oo ninkii 4 xabo jajaba amxaariya yaqaanay oo ninkii ula tago oo ninkii 4 xabo ingiriisi yaqaanay oo ninkii ula tago bal fiir dad muslim ahaanahay dad islaam ahaanahay qofkan waa dhibaataysay waxba kuma haysto
dhibaatadii marka inaad un la daba socotood meel kasta oo aad dhibaato ka gaarsiin karto inaad ka gaarsiidaa wax aad looga xumaado wa runtii buuggaas magaciisii ma xasuusto aad iyo aad anugu xumahay ma xasuusto laakiin buuggaas gabadhaas ay qortay haddaad akridid ilina kaa imaanayso waxay ka hadlaysaa dhibaatada loo geysanayo iyadoo gabar muslimada iyadoo gabar soomaaliyeed ah dhibaatada loo geysanayo oo xataa xabashidii markay u gashay xabashidii looga dabagalay marka waxay tiri ninkii baa loo tegaya waxaa la leeyahay gabadhan annagu reerkooda ma guursan maxaad u guursatay maxaad ku falaysaa annaga dad gabadhan dadkeedu waa dad naga hooseeya ninkii wuu yaabay mudduu wixii u qaadan waayey dadkan gabadha walaashooda ka sheekaynaya maxay asagu soomaaliya oo dhan soomaaliya u tahay war dadkan gabadhan walaashooda ka sheekaynaya oo 24 xumaanta ka sheegaya oo 24 saac la saanay tahay oo wax wuu la qabsan waayey gabadhii u yimid wuxuu ku yiri qisaan rabaa inaan kuu sheego laakiin mid iga ballanqaad inaadan iga xumaanaynin igana aaminaynin inaan anigu dadkan wasaqda hadalkooda kuu dhibaataynayo ii sheeg bay tiri maxaa ka qaldan wiil dadkaaga maalin kastay ii imaanayaan aniga xaaskayga iiga hadlayaan wuxuu leeyahay gabadhan maxaad u guursatay annagu ma guursano annagu saan maaha ay leeyihiin waxa marka ku kalifay gabadhaas inay buuggaas qorto buuggii macnaha ma wada xasuusto waxay ahayd in xataa xabashidii looga dabagalay bal adigu isweydii nin muslim ahaa tahay marka koowaad reer maxaa ku dhexgeliyey marka koowaad ma og tahay se adigu inaad qayb ka ahayd gabadhan inay maxaarkaaga guursato inaad adigu dhibaatadan qayb ka ahayd ma og tahay adigu inaad adigu ku kaliftay inay xadkan meeshan inay gasho adigu ma og tahay haddana haddaad adigu gelisay maxaa ku daba dhigay oo dhibaatada intaan ka gaarsiisay maxaa ku daba dhigay qof nuuceeya ayaa tahay damiir nuuceeya ayaa kugu jira dhiig nuuceeya ayaa kugu jira nuucaa tahay isweydii adiga waxyaabaha waxay lamid tahay ka mid tahay aadka cajiibka u leh marka fadlan qofkii qisooyinkan oo kala haya noo soo gudbiyo waa sii daynaynaa sidaan dadka uga wacyigelino dhibaatada ka dhalan karta iyo dhibaatada dadka loo geysanayo bilaa sabab qof muslima qofka islaamku waa jasad waaxid haddii korkaaga dham waa hal haddii fartaas ku xanuunaysa kama seexan kartid jirkaaga kale inuu nasto suurtagal maa marka maxaa kugu kalifaya inaad qof muslima aad dhibaatayso oo walaalka ah haddana kula soomaaliya haddana kula ilma adeero kula dhashay adiga isweydii adiga mideeda kale almuslim aqal muslim qofka islaamka waa qofka kale muslimka walaalkii maxaa kugu kalifaya marka inaad dhibaatayso qof muslim ah oo walaalkaaya ama walaashaaya inaad dhibaatayso maxaa kugu kalifaya waa inaan isweydiino waana inaan iska wacyigelino oo aan arrintaa iska ogaano waxaan filayaa inaan arrintii maaragtay muqdisho ka soo gudubnay waxaan gudbaynaa marka midda hargeysa waxaan arkay gabar xabsi ka soo baxday iyo rafaad dhaawaca wejiyadeeda iyo jirkeeda ku yaalayana aad yaabaysid oo ka sheekaynaysa facebook ay taale muddo dheerba ma ahayn oo ka sheekaynaysa wiil ay isguursadeen awgii in ehelkeedu dhibaatadan ugu geysteen waxay sheegtay in dhowr iyo 10 maalmood istaag loo xiray oo aan jiif loo ogolayn oon cunto la siinayn oo intaana la garaacay oo la dhibaataynay maxay gashay dhibaatada ay gashay waxay tahay dembiga ay gashay maxay tahay soomaali maaragtay qof diinta ka baxay ehelnimo u garaacaysa maaragtay adiga ma dhacdo dadkiisuu la nool yahay iyadoo la ogyaho gaal uu jiray soomaaliya ay joogeen uu ehel leeyahay oon qibna wax yeelin laakiin gabadhan dembiga ay gashay maxay tahay wiil soomaaliya oo deriskeeda oo walaalkeeda ayay guursatay maxay ku kasbatay marka waxay ku kasbatay ciqaab nacayb dil iyo waxyaaba noocaas oo kale in loo geysto ay ku kasbatay sababtu maxay tahay iyadaa ka hadlayso facebook ay taallaa waa arrin dhaba
arrinku turkuteena maaha iyadaa sheegaysay waxa dhib loo geysay intaasoo maalmood inay xirnayd intaasoo maalmood in la garaacay intaasoo maalmood in la rafaadinayay haddana wejigeeda keliya nabarrada ku yaalla aadan malayn karaynin korkeeda rafaadka ku yaalla aadan malayn karaynin maxaa ehelkeedu u go'aansadeen inay dhibaatada intaa la gabadhooda u geystaan oo guuray samaysay ogow waxa loo dilaa dhaqan xumo maaha xadgudub maaha waa wixii ilaahay baneeyey waa arrimaha aan aadka iyagana ula yaabay ayay ka mid tahay midda kale qisada kale waxay ka dhacday magaalada boosaaso qofkii ii sheegay wuxuu ii sheegay qofku u sheegay inuu magaaladan joogo hadda aan joogno ee Leicester qofkaana uu leeyahay uu yahay qof goobjoog ah uu ahaa maxaa dhacay marka nin baa waxay tiri wuxuu yiri ku dilay wiil baabuur ku dilay dadkii dhamaa qayliyay war qof dishay war nimaa dishay war maxaa kugu dhacay nimaa dishay wuu soo degay dadkiina waa ku soo xoomay wuu fiiriyey wuxuu yiri war maanigoo nin reer hebela yaad waxaad ii joojiseen addoonkan xumo baabuurkaygu dilay dhegeyso waxaas makanba waxaanad ii joojiseen baabuurkaygu dilay baabuurkiisu ku laabtay waa gala waana ka dhaqaaqay waa 2 sano ka hor qofkii joogay halkan jooga gacmahan kor u taagaynaa waxaan leenahay ilaahu khayrna si ilaahu colaadda naga qaad ilaahu dhibaatada naga qaad innagu dhexdayada ma isu cadaalad farnay dulmiga ma iska joojinay wixii ilaahayna amre ma qaadanay mase waxaan annagaa dhibaato isku hayno dadkii muslimiinta dhibaato u geysanayno rafaadinayna 24 saac annagaa dhibaato isku hayno bal cadaalad darradaas fiir wuu dhaqaaqay qof soo xirtay iyo qof raadsatay midna male maydkii dariiqii uga tegey waxaa la rabaa marka inaan annagu isweydiino dhibaatooyinka noogu dhacaya xaggay nooga yimaadeen waa maxa sababtay noogu dhacayaan sabab inaan isweydiino ma aha in loo qaato waay ninkani halkan waxaan u sheegayaa ama usaan u leeyahay masalan waa dhab waa wax dhaco dhaba wax la qarin kara ma marka qisooyinka noocaana sababta waxyaabahan ay u dhacayaan oo qof islaam u samaynayo oo qof kaloo islaam ugu samaynaya maxay tahay sababtu isweydiinay leeda ninkii sidii ku dhintay ninkii baabuurka ku dilay sidii isaga tegey dabcan wixii dhalay iyo eelkiisa unbaa qaadan doona oo duugan doona midda kale on rabo inaan ugu dambayntii barnaamijkan ku soo xiro waxay ahayd iyaduna qiso ka dhacday dalka Holland oo qolyaha afarta ah dhex martay in wiil gabar soo doonay markii la isu soo gogol fariistay odagii gabadha dhale uu diiday yiri maya anigu ma yeelayo reer hebel iyo aniga waxba nagama dhaxeeyaan dagaal naga dhaxeeyo reer hebel iyo aniga waxba nagama dhaxeeyaan dagaal naga dhaxeeyo gabarna ma siinayo gabadhii waa soo baxdo tiri aaba aniga wiilkan anaa kuu soo diray haddaan rabo bannaankaasan ka raaci kari saxna ma waxaad samaynayso marka gabadhu intii soo bixin wiilkaa ku yidhi adeer anigu waxaan ahay hebel gabadhaanu waa hebla waxaan ahaa 2 qof oo isjeclaatay waana kaaga soo gogol fariistay wixii Soomaaliya ka dhacay waxaad isku disheen iyo waxaad isku haysataan shaqadeena maaha aniga iyo gabadhani waxaan ahaa 2 qof oo walaalo ah isna doonaya annaga waxba nagama gelin waxaad ka hadlaysaa xamar in la isku diriray in Soomaaliya la isku diriray hawl adinka idin taal waay laakiin arrintan sidaa ka daa odaygu waa diiday gabadhiyaa ka soo daba baxday waxay tiri aabbasan sax ma ah wiilkan waxa aad sheegay wax ka galay male anaana kuu soo diray saxna ma aha inaad sidan ugu jawaabtid marka waxay tiri arrintan ka laabo ma yiri waa diiday odaygu
ما يير واي gabadhii marka shaydaan baa u qabray wuxuu yidhi haddiiba laguu diidan yahay wiilkii walaalkaaga ahaa ee soomaaliga ahaa ee aad keensatay waa inaad ka aarsataa iyagana nin waxaa jiray marka iyada la shaqeeya oo gabadhan mar walbaba waad qurux badan tahay cajiibaa tahay soomaalidu wax lala yaabo waaye dumarkoodu afrikaanna uma eka carabna uma eka caddaanna uma eka caadi matiin nin dhihi jiray aye maalinkii dambe ammaantii uun meeshii ka waday markaasay ku tiri adiga ammaantaadu ma kaa dhaba mase waa dhabay iga tahay oo anigu ya hayay tiri maxay tiri marka anaad ila degaysaa bay tiri anigaa guri haysta reerkaygaan la degana anaad ila degaysa ninkii soo wada guriga keenta hooyadii aa ku qaracantay war maxaa dhacay ninkan muxuu ahaa waa saaxiibkaygii tiri ninkan namaandaysaan maaha iska iloobay tiri anu nin muslimaa idin keenay nin soomaaliya idin keeno walaalkay ah waxaan idhi ninkan igu dara waa diideen kan anaa keensaday kii aan idinka baryayey ma aha sharci ilaaliyana waddanka waa ka jiraa maanday anigu kuguma samayn aabbaa sameeyey haddii aabba gurigan isagaa maamulay waxaan anigu waxay tiri ninkan anaa keensaday waana sidaas odaygii baa yimid ma dhici karto yidhi saam reerkii inay isku dhacaana ka dhacday markii dambana odaygii bannaanka loo saaro adaa keena waxaan habartiina ay tiraahdo haddaan bannaanka u diro diintayba ka sii baxaysa way sii fogaanaysaa inay ila joogtaa la ii qaatayoo anigu aan maaragtay wax u sheega maalin walbaba waa intaasoo maskaxdeedu isbeddeshaa laakiin suurtagal maaha inaan bannaanka dhigo odaygiina wuxuu yidhi bannaanka hala dhigo mayay tiri adaa bannaanka lagu dhiga odayga bannaanka la dhigo bal fiiri waxaa jira tilaabo aad qaadayso oo dhibaato aan laga soo kabsan abuuraysa dhibaato aan laga soo kabsan abuuraysa marka qofku waxaa muhiima in uu xadka islaamka ku jiro oo marka hore waxa uu samaynayo inuu ka fiirsado inta aan dhibaato kale aysan ku imaanin maxaa ku dhacay reerkii marka wiil soomaaliya oo adeer u yahay uu garanayo oo asalkiisa garanayo faraciisa uu garanayo oo wuxuu ugu diiday qabaliyad oo yiri kuma siinayo markaas waxay u keentay nin meeluusa ka yimid uusan aqoon oo weliba islaamba ahayn oo aan weliba guur weydiisanayn oo gabadhan waa kaa guursanaya oo boyfriend iyo girlfriend ay u keentay guriga kula noolaatay yaa sababay odaygii baa sababay marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay in qofku uu ka fekero waxa uu samaynayo naftiisana uu u axsaan falo naftiisa inuu axsaan u sameeyo oo aadan dulmin qof islaama oo aadan adigoo weliba islaam ah inaadan u bareerin qof kaloo islaama inaad dhibaato u geysato nuucay rabta ha ahaatee hadda kuwan u dambeeyo ka sheekaynaynay waa nimanka yidhaahda geela soo noolaan cunaa geelaan laga naa nimankaas waa qolyaha afarta waa dhibaatadu ka dhex taagan tahay ka dhex dhacayso hadda maxay uga dhex dhacaysaa waa qabiliyaddii sababta qabiliyaddu waa 3 qaybood qaybtii koowaad oo nuucina lakugu talagalay midda cunfiga iyo sababta oo laysku dilo oo laysku dhibaateeyo iyo midda saddexaad oo ah markaas inay cunsuriyadda gaarto sababta waxani waa qabiliyad qabaliyadda waxay kala leedahay 3 darajo darajada u dambaysa waxay noqotaa marka cunsuriyad in laysku dhibaateeyo darajada ka hoosena waa midii loogu talagalay oo ahayd litacaarafu in layskuna garto layskuna xiriiriyo layskuna qaraabaysto ma aha in laysku dilo laysku xumeeyo ama laysugu heliyo xumaanta laysugu heliyo marka islaamku wuxuu nafarayaa unsur akhaaka daaliman oo madluuma laakiin nama farayo unsur akhaaka walow kaana daalima ma aha waxa waaye hadduu isagu qaldan yahana jooji haddii asagu uu saxan yahana xaqiisii la doon oo dheh war ninkan waad ka qaldan tahay wixiisii soo si ama waxa aad ku wadda ka dah hadduu isagu joojiyana celi islaamku saasuu nafaraya laakiin inaad asraar iyo dulum iyo aflagaado iyo dhibaato qof kaloo muslima inaad ula tagto waa mamnuuc
meel ay islaamka saan uga leedahayna ma jirto qofka anigana waxaan shakhsiyan ba aaminsanahay qofka hadduu qaabkaas u dhaqmaayo in adaga islaamnimadiisa faro ku jirto sababta waxaan waa wax lagu cadaab mudanahay islaamnimaduna waxa qofku islaamka markuu ku dhaqnaa cadaabku ka badbaadaa marka islaamka iyo salaadu waa iyo waxa aad samaynayso cibaadada waa inay dhibaatada kaa reebaan si aadan ummadaha kale ugu xadgudbin waa inaad xad leedahay inay ku xadayso waayo islaamnimadu xad kuu yeesho laakiin haddaad iska shabkaxsato meel alla meesha rabta iska gasho wax alla wixii aad rabta iska samayso yacni islaamnimadaada dib u fiiri haddaad qofka kula heshiido wax qalada ama aad qofkii oo qalad samaynaya ujeedda aad ku ogolaato yacni islaamnimadaada dib u fiiri qalbigaagu waa inuu diidaa xumaanta qalbigaagu inuu diido waayo oo karaahaysto xumaanta waxaa laga yaabaa hadda maanta aniga magaalooyinaan sheegay intaa wax ka dhacay inta wax ka dhacay qof dad inaysan dhibin wixii dhacay laakiin ay dhibto magaalooyinka aan sheegaa dhici karta maxay tahay isweydii bal adigu isweydii in magaalada muqdisho waxaan ka dhaceen boosaaso waxaan ka dhaceen hargeysa ka dhaceen godaya ka dhacan aan sheegayo in magaalada la magacaabaa dhibto aad dhici karto laakiin aanay dhibin dhibka la sameeyey inaanay dhibin maxay tahay waa anaaniya marka waxaa la rabaa in walaalayaal xumaanta laysaga gargaaro oo qofkii xumaan ku dhacaya laga qabto qofkii wanaag wadana lagu garab galo waxyaabaha dhacayana dadka laga wacyigeliyo qof walbaaba kullukum raaci wa kullukum mas'uulun can raaciyati qof walba waxaa loo sameeyey mas-uula laga dhigay ilmahaagaad mas-uul ka tahay reerkaadaad mas-uul ka tahay qaraabadaadaad mas-uul ka tahay marka intaad mas-uulka ka tahay inaad ka badbaadisid inaanay ku dhicin waxaanoo kale ilmahaaga inaad ka badbaadisid qaraabadaada inaad ka badbaadisid inaad kala taliso oo kala hadashid sababta wax macno aniga ii samaynaya maba ahanba macno ii samayn mayso ninkaan waa reer hebel iyo ninkaan waa reer hebel macno ii samayn gabadhaan waa reer hebel macno ii samayn mayso waa qofka inay macno u samaynayso akhlaaqda qofka inay macno u samaynayso qofkaan waa akhlaaq wanaagsan yahay ama waa akhlaaq xun yahay qofkaan waa diin wanaagsan yahay ama waa diin xun yahay qofkaan waalidkiisu u yahay caasi iyo qofkaan waalidkiisu u wanaagsan yahay macnaha waxaa jira sifaadka qofka lagu fiirinayo ama miisaanka qofka la saarayo waa inuu noqdaa qofku bulshada meeshu uga jiro iimaaniyaadkiisa iyo diintiisu sida ay tahay waxyaabaha uu ka shaqaynayo waxaasaa la rabaa in qofka macnaha uu ka shaqaynayo wanaagga ah in la fiiriyo oo miisaan lagu saaro ma aan shaqada isagu qabsanaya ku noolaanaya kama hadlayno qof walba wuxuu xirfad u leeyahay ku noolaanaya laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa meesha uu bulshada ugu jiro kaalinta uu bulshada ugu jiro iyo qofkaasi wuxuu yahay in lagu qiimeeyo waa qofka muslimka iyo xataa qofka bini aadankaaba laakiin in lagu qiimeeyo ma aha xaguu ku dhashay iyo u dhashay ma aha muhiim maaha qofkan dhalashadii iyo meeshu ku dhashay waxa waa ka soo gudbay hadda waa qof bulshada kaalin ugu jira waa marka kaalintiisaas in lagu qiimeeyo diintiisaas iyo in lagu xurmeeyo lagu xushmeeyo islaamku waa inuu walaal kaala dhigaa fiiri maxaan uga gubanaynaa dadka ma lagu leynayo iyo minimaar maxaan uga gubanaynaa sababta maxay tahay waa islaam dalkeena lagu gubaa dad muslimiina oy dhacday in lagu gubo hay oon wada ognahay marka sababtu maxay tahay marka aan u xumaanayno dhibka Syria ka dhacay waa islaamnimadii waa inaan ku dabaqnaa marka annaga nafteenna iyo gurigeenna iyo deegaankeenna iyo caruurteenna inaan ku dabaqno way ma aha inaan la xanuunsano qof aan garanayna aan la xanuunsano waa waajib because waa muslim qofka aan danaynayn arrimaha islaamka waa qof islaamnimadiisu nooshahay ma aha laakiin wax dareenkaas noocaasa waa inaad ku dabaqdaa adigu deegaankaaga iyo dalkaaga iyo dadkaaga oo dadkaaga kuu siman yihiin oo dadkaagu ay xaquuqda ay kugu leeyihiin aad siidid qof walbana aad xurmada iyo xushmada uu kugu leeyahay aad siidid oo islaamnimada iyo walaalnimada iyo derisnimada iyo wada dhalashay iyo qaraabanimada inaad siidid waay markaas ayaa macno samaynaysaa inaad la gubato walaalkaaga minimaar ku dhibaataysan iyo midka China ku dhibaataysan iyo midka Syria ku dhibaataysan markaasay macno Falastiin ku dhibaataysan markaasay macno samaynaysaa laakiin waa qira Japan haddii aad cadow la dhahdid kuwa xagga jooga kan ku dhibaataysan agtaadana aadan dan ka gelin macno ma samaynayso walaalayaal kolley barnaamijyadan waan wadi doonaa haddii ilaahay idmo waa barnaamij wacyigelin ah oo aan hadda ka bilowno Gorgata TV
وانا برنامج سعودنا هدي الى ادمو مالين كستو سبدينا سو geli doono haddaad page kan follow dhahdana waad kala socon kartaa ama page kan aan hadda aad naga daawanaysaan haddii kale Gurgata TV YouTube-ka subscribe dhaha si aad u heshaan mar kasta oo soo dhaco xataa waxa dhici karta in shaqo ku jirtid laakiin hadhow marka shaqada ka soo baxday wuu ku tusaya YouTube-ka wuxuu ku dhahayaa barnaamijka waxa ku soo dhacay barnaamijkaas ku soo dhacay marka halkaas aad ka daawan kartaa oo aad barnaamijkan kala socon kartaa marka nagala xiriira YouTube-ka ama follow gareeya page kan aan kala hadlayno hadii ilaahay idmo barnaamijyadan oo kalena waxaan idin soo dayn ka doonaa maalin kasta oo sabdiya hadii ilaahay idmo adinkana inaad noo soo dirtaan wixii maaragtay la xiriira arrimahan aan ka hadlayno si aan dadka uga wada wacyi gelino oo aan dadka xumaanta uga hor istaagno oo aan dadka ugu waanino ama aan ugu gudbino waxyaabaha wanaagga ah aan anagu u arkayna amaba islaamku u arkayo wanaag sababtoo waxaan ka hadlayno waxa weeye xumaanta iska daa wanaagana raac cunsuriyadda iska daa islaam horta qof muslima cunsuri ma noqon karaa inaad isweydiiso adigu ma karaahsan kartaa qof muslima dhalashadiisa ma ku karaahsan kartaa arrintu waa iska cadda waa maya muxuu ku yahay qofka walaalka waa walaalka ama waa walaasha ama waa walaalka diinta islaamkayna ku cadda marka adigu ma u hoggaansan tahay kitaabka qur'aanka ay aad sidateed maalin kasta akhrinaysid ma u hoggaansan tahay ma ayidsan tahay axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam ma rabtaa inaad raacdo qaabka islaamku uu isu xiriiriyo ama isu wanaajiyo ma rabtaa inaad raacdo raac qur'aanka raac sunnada niyadaada ha raacin iyo qalbigaaga iyo qabiilkaad u dhalatay iyo waxa sheekada la yiraahdo caado laga tagaa cara allay leedahay iyo caado la raacaa cara alla leh caado laga tagaa caado ma aha diin qayb kama aha caado waxyaabaha hadda dadku ay waxyaaba inay caabudaan dadaa geeda caabuda dadaa oo xoolo u qala geeda dhiig ku shuba waa caado diin bay ka dhigteen dad baa mataqaanaa dhagxaan qorta oo caabuda waa wax ay caadaysteen aabbayaan ka soo gaaray aabbayaa samayn jiray hadda haddaad weydiiso qof walba wuxuu ku leeyahay nimanka gaalada annaga waxaan weligeena ehelkeennaa samayn jiray dadkeennaa samayn jiray iyagaan ka soo gaaray marka anoo muslim ah oo diinta islaamka haysta oo qur'aankii garanaya oo axaadiistii garanaya inaan inta dhinac iska dhigo aan caado ku dhaqmo wax saxa maaha ogow qof walbo adoo kaligaa ah ayaa qabri lagu dhigi doona adoo kaligaa ayaad ilaahay hor istaagi doontaa ilaahayna iyo adigana turjumaan idinma dhaxayn doono laakiin qof walba waa inuu diyaarsadaa wuxuu alla la hortegi lahaa subxaanahu watacaala uu ku raalli gelin lahaa intuu adduunka joogo waxaan ka xumahay ereyo aan isticmaalay anigoo ka sheekaynaya buug ay gabari qortay maadaama aanan buuggaas anigu ereyada ku qoran aanan waxba ka bedeli karin oo ay tahay sidii ahayd aan u sheego haddaan wax qalday waxaan raalligelin ka siinayaa dadka dhammaan idaawanaya haddaan wax saxayna dee ilaahay agtiisa ka ahaatay wanaagga aan isu dardaaranno wanaaggana aan ku wada noolaano xumaantana aan iska reebno intii annaga awooddanada intii i daawanaysay intii i daawo doontaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu